Okay. You think it's... I don't think he says we have to go. Assalamu alaikum. Galab wanaksan. Nabad Iano. Your Excellency, Mr. President of the Federal Government of Somalia, Hassan Sheikh Mahmoud, Your Excellency, Minister of Interior and Federal Affairs, Mr. Abdirahman Mohammed Hussein Odawa, Your Excellency, Mr. President of the Interim Southwest Administration, Sharif Hassan Sheikh Hadan, Your Excellency, Mr. President of Galmudug Interim Administration, Abdi Karim Hussein Guled, Your Excellency, Vice President of the Galmudug Interim Administration, Mohammed Hashi Abdi, Honourable Members of the Federal Parliament of Somalia. That flag's out. Good. Thank you. Thank you. Thank you. Amasati wa amasatin. Okay, you need this one. Thank you. All right, let's carry on. Time. Honourable Mr. Speaker of the Galmudug Regional Assembly, deputies and members of the Assembly, respected traditional and religious leaders, ambassadors, members of the diplomatic corps, ladies and gentlemen. May I first begin with an apology. I am very sorry, but our time is very short. The aircraft must leave for Mogadishu. Very long and very good speech. wuxuu yiri waxaan rabaa inaan ka daarto waqtigii inuu dhamaaday diyaaradeenna ay tagayso marka hadalkii aan ugu talagalay waa sababta ma jeedi doono. So if I can just restrict myself to giving many congratulations and also a couple of words of advice in my capacity as Special Representative of the Secretary General of the United Nations. in aan waxaan ku soo koobaa warkayga abaalmarin iyo mahadnaq iyo talooyin inaan soo jeediyo anoo ku hadlayo magaca hoggaanka guud ee qaramada midoobay. First, the huge congratulations, because what you have achieved has not been easy. Many of my Somali friends tell me that reaching a settlement in the central regions of Somalia is the most difficult task in all the politics of Somalia. You have done it. Well done. wuxuu yiri waxaan marka hore mahadnaq weyn ka jeedinayaa guusha gaarteen hadda tihiin dadka gobolada dhexe sababtoo ah waxaa la ii sheegay oo dhahay saaxiibada ii sheegeen gobolada dhexe inay tahay meesha ugu siyaasadda adag Soomaaliya marka haddii lagu heshiiyey waa lagu heshii karaa cad. I'm also told usually that from the central regions in Somalia, all the best things come and all the worst things. waxaa kaloo la ii sheegay gobolada dhexe inay tahay meelaha wax kasta oo fiican ay ka yimaadaan waxa dhibka badan sidoo kale ka yimaadaan. So huge congratulations to the signatories of the original agreement in Mogadishu last year, the federal government of Somalia, the technical committee, the clan representatives, women and youth, the Somalia Stability Fund and its implementing partners, and all the people of Galmudug who made this possible. waxaan marka mahad gooni u leeyahay oo dhahay saxayaasha heshiiska
galmudug hore sunna iyo xibin xaab guddigii farsamada shaqada weyn soo qabtay dawladda federaalku meel gaarka ah iyo hay'adihii taageeray oo stability fund ay kamid tahay inta. I would also like to thank and acknowledge the important role played by the Somali security forces and the Ethiopian National Defence Forces. Thank you for your service. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kaalinta ay ka qaateen sugidda amniga iyo ciidanka xoogga dalka dawladda aan dariska nahay Ethiopia. So that's the congratulations and the happiness of today. Can I just share 2 words of advice as well, and to repeat some of the messages which our colleagues from Ethiopia, our colleague from the European Union have also said. Aan talooyin yar ku soo kooba inta aan raaciyo warkii saaxiibada iga horeeyay European Union Ethiopia ay sheegeen. Galmudug has been born. It is like all babies, it is a beautiful baby, it is a precious baby, it must be treasured. Galmudug waxaa la dhalay iyadoo wiil qurxan ah aad u fiican aad u qurux badan saas inay haadeen ku fiican tahay. We also know during the birth it was hard. There were complications in this birth. Dhammaadase waa mid adag ay ahayd leeyahay. And the baby is now needing some quite important and urgent medical attention. Wiilkaas dhashayna wuxuu u baahan yahay in la baxnaaniyo oo helo daawo fiican. Now modern medicine in Somalia is very effective, I know. daawada cusub ee Soomaaliyana waa mid aad u shaqeynayso caanaha. So I am absolutely sure that if 2 things are done, then there will be no problem with this baby at all. haddii labadaas arrin la qabtana wiilkaasi inuu caafimaadkiisa aaminsan. The first is we all have to work together to help to find an accommodation with Ahlussunna wal Jamaa. We all have to do that. Maantan waa inaan ka shaqeynaa sidii Ahlussunna loogu soo dirahay hawsha meesha ka unkanta. This is now the time for politics, for negotiation, for discussion. This is not the time for the barrel of the gun. xilligii qoriga wax lagu doonayay lama joogo xilligii siyaasadda iyo wada hadalka la jooga. The United Nations and the international community will provide any support that is necessary to help with finding a solution to that problem. Qaramada Midoobay ee caalamkana waxay diyaar u tahay in arrintaas gacantii kasta oo looga baahdo ka geysato. The second issue is your relations with your neighboring federal member state of Puntland. Qodobka kale waa dariskiina oo ayadana ah dawlad goboleed kale. And that I know can be solved quite easily. You can be and you will be good neighbors. taas inay sahlan tahay halkeedan aaminsanahay saa u noqotaan daris oo fiican isku wanaagsan oo saaxiibo ah. And obviously the secret of being a good neighbor is that nobody claims something that does not belong to them. dariska waxa ugu fiican ay ku wada dhaqnaa karaan waa inaysan wax isku sheeganin. And we as international community have witnessed the agreement last year in Puntland between the then Prime Minister and the government of Puntland. We support that agreement. Annaga haddaan beesha caalamka nahayna waxaa markhaati ka yahay heshiis ra'iisul wasaarihii hore la gaaray dawladda Puntland. And that on the principle that no administration will claim any other administration's territory, and that is solid, and we shall support and we shall guarantee that. I know the President will too, and therefore I am sure you can both live in harmony together. maamul kale dhulkiisa sheeganin taasna waxaan rajaynayaa inuu madaxweyne xasan ugu gacan siiyo. Since 1993's agreement, the people of southern and northern Mudug have lived in peace and harmony. 1993 laga soo bilaabo labada maamul si nabada ayay ku wada noolaayeen. Since 1993 that has happened. That will not change now. I am sure, I am confident you will all live together
in peace and harmony. sidii sagaashan saddexdii laga soo bilaabo nabad lagu wada joogayna hadda in lagu wada joogaan rabnaa. So that's it. Two bits of little medical attention, and the baby that is born today, I'm sure, will live a long and very healthy life. haddii labadaas dawo laga gaarsiiyo waxaan rajaynaynaa oo dhahay wiilkaas inuu caafimaadkiisa fiicnaan doono. And we look forward to another addition to the family when Hiran and Middle Shabelle complete their process, inshallah, very soon. qoyskaasna waxaan rajaynaynaa inay ku soo biro anug kale oo ka imaanaya Shabeellada Dhexe iyo Hiiraan. Somalia is really a very active and quite fertile country. You seem to be having regular births and regular additions to the Somalia federal family, and that is wonderful. Soomaalida waxa u dhawaa dad aad u firfircoon cusubna ah mar kasta in la helo xubin cusub oo ku biirta waa arrin aad u fiican. So long live Galmudug, long live the Federal Republic of Somalia. Thank you very much. Galmudug noolaato federaalka siinayaa gacanka mikrofoonkan ku soo dhaweynayaa madaxa ergada dowladda Ethiopia ku-xigeenka ambassador Jamal. مدن حسن شيخ محمود مدحوينها جمهورية فدرالك الصوماليات مدن عبد الكريم حسين قولات مدحوينها عصوبة مملكة قلمدك مدن شريف حسن شيخ آذن مدحوينها مملكة كونفور قلبات وزير دا يحلبان دا دولة فدرالك بارلمان كقلمدك يقودون كيسة مدحوينها كحوين كقلمدك دبلوماسيين تا odayaasha dhalinyarada gabdhaha iyo dhammaan marti sharafta kale waxaa maanta sharaf weyn inoo wada ah ka soo qaybgalka munaasabadda caleemasaarka madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa cusub ee maamulka Galmudug kaas oo lagu doortay 4 July 2015 process sanad ku dhawaad soo kaca ku faahayay marka laga soo bilaabo heshiiskii bishii 7 2014 lagu gaaray Muqdisho ay ku kala saxiixdeen dhammaan 7 xubnood ee marka ka soo jeeday gobolada Neet waa saddexda Galmudug hore al-Sunna wal Jamaa xubin iyo xeeb iyo wasiiradii wakiilada kala ahaa qabiilada kale madaxweyne waxaan si gaar ah mahadnaq ugu celinayaa guddigii farsamada iyo golihii wasiirada uu hogaaminayay wasiirka arrimaha gudaha ee sida wanaagsan ee uu fanoo soo dhameysay gaar ahaan sida waafiga ahayd ee doorashada loo soo agaasimay iyo sida ay TV-da ay soo gudbinayeen shacabka Soomaaliyeed ee adduunka ku nool marka kale madaxweyne waxaan halkan uga baleenayaa mudane Cabdikariim Xuseen Guuleed iyo ku-xigeenkiisa waxaan ogsoonahay mudane Cabdikariim inuu xilal kala duwan ka soo qabtay dowladda federaalka sida wasiirkii hore arrimaha gudaha wasiirka hore arrimaha amniga ka ah sidaas daraadeed waxaan aaminsanahay inuu khibrad dheer u leeyahay jagadan loo doortay mudane madaxweyne waxaa laga maarmaan haddaba in la dhameystiro maamulka isla markaana sida ugu dhasaa badan loo guudagalo xalinta arrimaha xasaasiga hadda ka taagan gobolada dhexe ay ugu weyn yihiin al-Sunna wal Jamaa in wada xaajood ama waxaan kugu boorinayaa mudane madaxweyne Cabdikariim Xuseen Guuleed in wada xaajood rasmi ah aad la furtid isla markaana natiijada wada hadalkiina ay si cad uga muuqata dhismaha golaha fulinta cusub ee sameyn doonta labo in waxa kale ku boorinahay madaxweyne dareenka Puntland
ay ka muujisay qodob ka mid ah qodobada dastuurka cusub ee maamulka galmudug adoo la kaashinahay baarlamaanka cusub ee galmudug aad hoos u fiiriso mudane madaxweyne waxaan halkan ka cadaynayaa in Ethiopia ay diyaar u tahay in ay gacan ka geysato turxaan bixinta heshiis in la gaadho Al-Sunnah wal Jamaa markale mudane madaxweyne waxaan halkan ka sheegayaa in sidii hadda ka hor ciidanka kaanaga ah aan ugu hornay madasha ilaalinta magaalada Cadaado aan sidoo kale ay noqon tahay inaan kula xoojino maamulka cusub marka hambalyo has already been touched on by our Ethiopian colleague in one of what we call inclusivity. We talk often in Somalia about inclusivity, and this has been a challenge not only for this administration, but I must say for all administrations. Inclusivity was not achieved immediately. Not everybody was immediately on board from the beginning. That being said, we as European Union, together with others, have witnessed the agreement which led to the formation of the administration, and 3 parties signed to that agreement, and 1 party has yet to be accommodated. You know who I'm referring to. I'm referring to Al-Sunnah wal Jamaa. I know that there is a commitment from the president to reach out with a view to accommodate Al-Sunnah wal Jamaa politically, economically, based on previous agreements, but also security-wise, integrate them in the Somali National Army. We very much support the role IGAD has played and have been working hand in hand with them in this area. waan soo koobay kulli wax dheer buu ka hadlay waana caqabada kale wuxuu yiri waxa tilmaamay saaxiibkay wakiilkii dowladda Ethiopia oo una hadlayay IGAD caqabadna waxa weeye looma dhamo Soomaaliya kama dhamaato yiri looma dhamo marka looma dhamada wuxuu yiri siyaabo badan bay noqon hay'ashee tan daqaas rabeen aan u taabto waxa weeye yiri walow annaga aan ahayn kii heshiiskii bilowgii Muqdisho lagu saxeeyay aan korjooga ka ahayn haddana waxaan inaan tilmaamo ama qeexo in Ahl-Sunnah wal Jamaa ay kamid tahay ama tahay halbowlaha arrinta aan ka hadlay in macnaha la taabto ama wax laga qabto Sorry, I'm a bit long. I know others have to rightly speak. I just want to emphasize one final point. The third challenge. I remember when General Aidid, the late General Aidid, and General Abdullah Yusuf reached an agreement. The situation was far more difficult than now, far more complex than now, and they were able to reach an agreement. I think if you can look at that and see your challenge that you have with Puntland, if the same commitment is there, the same willingness is there, you can reach an agreement. The differences are not huge. And it actually starts with the Constitution. No, I think we have to finish a second. So we will accompany you throughout this journey. You can count on us, and we hope that this tree will grow strong and high. Thank you very much. waan soo koobay wax badan buu ka hadlay wuxuu tilmaamay caqabadii ay ka gudbeen Allah raxmada General Maxamed Raadi iyo Abdullah Yusuf Ahmed Colonel Abdullah Yusuf Ahmed oo ka adkeetan maanta taala waxaan filaynaa buu yiri kulli daanu maanta guuleed madaxweyne guuleed iyo madaxweyne gas inay iyana ka gudbi karaan caqabadaha hor yaallo ama isfaham waa macna jira inay iyaga laftooda ka gudbi karaan baan macna iyadana rajayn habeen